بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحبة الكرام، أقدم لكم في هذه الدقائق الابن محمد حسن جابر الذي يلقي علينا بعض الكلمات النافعة حول محاضرة قيمة يشنف بها آذاننا، فليتفضل مأجورا مشكورا. هي الحمد لله رب العالمين، وصفيه وخليله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمته وبركاته. ولا ليال waxaan ka soo hadalnay jimcihii hore jannada iyo wanaageega khayraadka Alle u diyaariyay dadka mu'miniinta. waxa kale oo jira dad gaala ah oo arladan isku qaadqaaday barkood ay ilaahnimo sheegteen awaamirtii Rabbi caasiyay mu'miniinta layn jiray. dadkaasi masiirkoodu muxuu yahay? alla muxuu u diyaariyay iyaka iyo mu'miniintu may sinaanayaan? afanajcalu lmuslimiina kalmujrimiin maa lakum kayfa taxkumuun. ilaahay wuxuu leeyahay war caqli ma lihidiin ma ninkii mu'minka ahaa ee ilaahay ka cabsanayay subxaanahu watacaala ee awaamirtiisa raacayay iyo ninkii kaafirka abaa siman? may siman yihiin labadaas? ma sinna. maalinka weyn ee qiyaamaha, mowqifka weyn ee khalaa'iqda oo dhan ay iskugu imanayaan, nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam: yu'taa bijahannama yowma alqiyaamah lahaa 70,000 zimaam. maalinkaa waxaa lala iman oo la keeni mowqifka naartii jahannama. waxaa lagu jiidayaa 70,000 oo hoggaan. hoggaankii walba nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam 70,000 oo malag ayaa jiidaya. yashuruunaha way jiidayaan. waxay rabtaa inay khalaa'iqda ka ordo. gaaladii bay u cadhaysanta. kuwii awaamirta Rabbi iska diiday ayaa u cadhaysanta. wajii'a yowma-idin bijahannam. maalinkaa jahannama lala iman buu Alle leeyahay. yowma-idin yatadakkaru linsaanu wa annaa lahu dikraa. qofku maalinkaa waan toobi. naartii buu arkay, loo sheegi jiray, waxbuu qaadanayaa maalinkaas. laakiin alla maanta muxuu leeyahay wax qaadasha ma u sugnaantaba maanta. insaanku waa fikirayaa maalinkaas alla maan soo shaqaysta buu leeyahay. wa annaa lahu dikraa yaquulu yaa laytanii qaddamtu lixayaati. alla maan aakhiradayda usoo shaqaysta buu leeyahay. waa markii uu naartii jahannamo arkay oo khalaa'iqdii ay rabto inay kusoo ordo. ilaahay wuxuu leeyahay naartu way xanaaqsanta, way cadhoonaysaa naarta jahannamu. takaadu tamayazu min alghayd. waxay u dhowdahay buu Alla leeyahay inay cadho la googo'do ay u dhowdahay. way shanqaraysaa. celiya cadho ayaa haya. magaaladii baa meesha jooga. ma kuwii naarta diiday naar ma jirto? ma kuwii baa jooga meesha? ma fircawn baa jooga? qaaruun baa jooga? ma ibliis baa jooga? khalqigaas oo dhan baa mowqifkaa jooga. way u cadhoonaysaa. waxay leedahay rabbiyo kuwaa igu sii daa. 70,000 oo hoggaan ay leedahay. hoggaankii walba 70,000 oo malag ayaa haya. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيدا وزفيرا. marka ay meel fog ka aragto naartu, indhay leedahay, carab bay leedahay, way hadashaa naarta aakhiro. marka ay meel fog ka aragto samicuu lahaa taqayudan wazafiira. guux iyo shanqar bay ka maqlaan. way hanjabaysaa, way guuxaysaa. waxay leedahay rabbiyo kuwaa igu sii daa. way soo boodaysaa naarta jahannamu. malag
يا رسول هرمايو إلا جلبهي أدعيان نبي محمد باكي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على رسولنا محمد. يهوغان كنار توقبو مرقصو أرنيا ارجع مدحورا تبقوا نقا حكات كاتمت كنقا إلهي خلقيا يضدك أي كوي منيان وحي قارنيسا محمد خلي سبيلي فإنك يا محمد حرام علي نبي محمد أضو حرام بديتهي كقمايو لكن رقم على سنة بسيدا إلهي باء الدواقيا وحولي هاي اسمعي وأضيعي له محمد نقل وأضيع ودب نقل dibbaa loo jiidayaa dadku way naxayaan way argagaxayaan ahlu mowqif waxaa kasoo baxaya qoor baa kasoo bixi maalinka qiyaamaha sidaasuu leeyahay nabigu sala allahu calayhi wasalam yakhruju cunaqun min annaari yowma alqiyaama qoor baa kasoo bixi maalinka qiyaamaha laba indhood bay leedahay yubsiraan way arkayaan walisaanun yamdiq عرب هاللينا وكصبحي وحو أرنيا إني وكلت بثلاث صدح بالله وكيشي صدح بان قوانا يا هذا بكل جبار عنيد مذول بؤس وينايا وأمرك الربيس كديدة وبكل من دعا مع الله إلها آخر ينبد إله كلا عابدا وبالمصورين يكوى وحصورا صدح ذاس ayaan qabanayaa meeshan saddexdaa ayaa la ii wakiishay sidaasay odhanaysaa maalinkaas ما شاء الله تبارك الله. جزاه الله خيرا. إلهي هبركيو على هذه الكلمات العطرة التي شنفها على مسامعنا وذكرنا بما هو آت وما هو قريب. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا في ذلك اليوم العصيب وأن يرزقنا النجاة من هول وشدائد القيامة إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.